waxaan rabaa maanta inaan laba kelmadood ka idhaaho hadal cay iyo canjarafayna oo uu warbaahinta mariyey wasiirka warfaafinta ee somalilan maamulka somalilan ku magacaaban salmaan yuusuf cali koore oo ahaa cay iyo canjarafayn iyo aflagaado u geysanayey madaxweynaha dowladda puntland mudane said cabdillaahi deni waxaan rabaa marka hore inaan u sheego salmaan iyo maamulka uu ka tirsan yahay in dhulka ay haystaan ee uu madaxweynuhu ka hadlay uu yahay dhul puntland warka uu madaxweynuhu sheegnay uu yahay mid dhaba loona baahan yahay inay sida ugu dhaqsaha badan u badheeyaan deegaanadaas haddii kale uu dhig ku dadan doono hadalka kale mid kale aan rabo inaan salmaan oo aan u sheega waxa weeye waxaan saaga ku arkay baraha bulshada ceelal biyoodyo laga qodayo deegaanada sool iyo cayn oo uu wasiirkooda ninka ugu magacaaban biyuhu uu hor istaagay uu leeyahay sharci maaha in laga qodo taasaa ugu filan salmaan waxa meesha ka jira iyo gumaysiga lagu hayo ummadaas iyo horumarka laga hortaagan yahay waxaynu ognahay deeqaha ugu badan ee beesha caalamku bixisaa inay soo maraan maamulkaas ayna cunaqabatayaan ummaddaas waxay u qabtaan aanay jirin waxaad ka garan kartaa ceelasha laga qodayo oo uu ku xusnaa xidhxidh ee laga qodayo deegaanka xidhxidh oo uu leeyahay sharci maaha lamana qodi karo isagoo amraya wiilasha u jooga gobolka sool ugu magacaaban maleeshiyadaas ciidanka uu madaxweynuhu u xidhayey tababarka markaan kusoo noqdo wuxuu ahaa ciidan puntland tababaratay ay leedahay iskagana filan puntland inay iska saarto maleeshiyadaas waana la saari doonaa sida uga saabada insha allah marka sale waxaan leeyahay adeerow ku filow degaankaaga baa kugu filan waxa ka socda maamulka ka tirsan uu ku hayo maleeshiyadii ugu badnayd ee beelaha waqooyi galbeed ama beelaha dir waqooyi waxay joogaan gobolkaagay joogaan meel kale ay joogaanna ma jirto adiguna waxaasaad ku faraxsanta ku qanacsan tahay intaas iska propaganda dawacayadaas unbay ka mid tahay 200 baa isaga yaa u sheegay 200 tahay kumanaan baa loo soo xidhay tababar kumanaan kalena waa joogaan difaac waxay ku jiraan difaaca iyo dhulkii loogu tagay bay joogaan puntland waxay la dagaalantaa daacish bay la dagaalantaa shabaab bay la dagaalantaa jiidda hore ee sool iyo sanaag iyo cayn bay difaac kaga jirtaa marka ma aha waxa la haysaano waa sool dhul kaloo ay haystaan dhulkoodii oo dhan wixii joogay maleeshiya soo kacayeen halkay keeneen marka taasna uun dee waqtigun baa ka jawaabi doona puntlandna iskaga filan inay iskaga saarto haddii la idhaho laakiin xaqiiqii dhibta jira waxa weeye puntland waxaa wada istay 5 gobol iyo degmo madaxweynuhu intaasuu ka hadlay somaliland reer baa leh slm qabsatay dhulka baa soo gashay dowladdii soomaaliya burburtay reer bay ahaayeen burca la isugu tegey qoryaa dadka lagu qabtay saasaa maamulka somaliland horta ku dhismay maamul somaliland la yidhaaho jiro oo laisla aqoonsan yahay ma jirto waad arkaysa hadda wuxuu yidhi cadaabba geeraa ii kartay farmaajo u kaday ummadda inay somaliland saa ay u magaciisoodo oo firaya dadkii iyo dalkii ay lahaayeen xaqiiqdu waa saawi dowladda federaalka baana waxaa ka shaqaysa tan uu ka hadlaya dowladda puntland waa dowlad ka tirsan dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah iyadaana aabba iyo hooyaba u ahayd iyadaa ku raggeedu ku dhammaaday iyadaa dhaqaaladeedu ku dhammaaday haddana dowladda federaalka de waa la isqabanaya waxbaa la isku qabanaya yani waxyaabaha ay dowladda federaalku rabto inay keligeed marorsato suurtagalna maaha marka waxba iyo anaga federaalka nagu xoqine puntland waxay ka tirsan tahay dowladda federaalka waa dowlad ka tirsan xubnaha dowladda federaalka iyadaana hormuud u ah stateska jira runtii marka canjarafayntiisu waxba cidna yeelmayso isagu ma iscibaanaya